dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah u xaqiijisay inay la wareegtay qaar ka mid ah waajibaadkii iyo sidoo kale howlihii dalka ka hayay xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya, kaas oo muddo dheer door muhiim ah ku lahaa arrimaha siyaasadda, cadaaladda iyo dowlad dhiska Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud ayaa sheegay in dowladda ay 24 Agoosto si rasmi ah ula wareegtay howlaha dhinaca cadaaladda ee uu hayay ATMIS, iyadoo xafiiskaasi uu ku howlan yahay geedi socodka xiritaanka. 24 bishan Agoosto ayaa howlaheeni cadaaladda kala wareegnay xafiiska qaramada midoobay ATMIS, kaas oo xirmaya, ayuu yiri wasiirka. Wasiirku wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay diyaar u tahay inay si buuxda u qaadato mas'uuliyadda iyo sidoo kale howlaha xafiiskaasi dalka ka hayay, gaar ahaan kuwa la xiriira horumarinta cadaaladda iyo dowlad wanaagga. ATMIS ayaa muddo dheer Soomaaliya ka taageerisay dhinacyada siyaasadda iyo dowlad dhiska, waxaana ka mid ahaa howlaha uu qabtay isku keenista dhinacyada siyaasadda ee isku haya arrimaha muhiimka ah ee dalka iyo taageerada dadaallada lagu xoojinayo hay'adaha dowladda. Tallaabada ay Soomaaliya kula wareegayso qaar ka mid ah howlaha ATMIS ayaa ku soo beegmaya xilli qaramada midoobay ay wado qorshe lagu yareynayo qaar ka mid ah howlaheeda Soomaaliya, iyadoo mas'uuliyadaha qaarkood si tartiib ah loogu wareejinayo hay'adaha dowladda. Dhanka kale, waxaa jira walaac ka dhashay caqabadaha dhaqaale ee saameynta howlgalka taageerada caalamiga ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa la xiriira howlgalka Midowga Afrika ee AWSOM iyo xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya ANSOS. Hay'adaha qaramada midoobay ayaa sidoo kale Soomaaliya kala shaqeeyay arrimo ka mid yihiin dowlad wanaagga, horumarinta cadaaladda, waxbarashada iyo sidoo kale mashaariicda horumarineed. Wareejintan howshan ayaa dowladda Soomaaliya saaraysa mas'uuliyad dheeraad ah oo ku aadan sidii ay u sii wadi lahayd adeegyada iyo sidoo kale taageeradii hay'adaha caalamiga ah, iyadoo sidoo kale la filayo in isbeddelkan uu saameyn ku yeesho qaabka ay qaramada midoobay mustaqbalka ugu howlgali doonto Soomaaliya.